warbixin uu qoray Gideon Levy oo ah Yuhuudi ka faalooda dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa hadalhayn weyn caalamka ka dhaliyay. Gideon Levy ayaa qoraalkiisa waxa uu Yuhuudda ugu baaqay inay u haajiraan Yurub, waxaana uu qoraalkiisa u dhigay sidan: waxaan u malaynayaa in la joogo dhammaadkii dowladdeena Israa'iil. waxaynu muddo ku jiray qalalaase dhaqaale oo ka dhashay coronavirus. waqtiganna waxaynu ku jiraa xaalad fawdo kale ah, mana ogin wax dhici doona. duulaankii aan ku qaadnay masaajidka Aqsa waxa uu ahaa khalad weyn oo aan laga fiirsan. nidaamkeennii difaac ee Iron Dome isku halayn weyn ma laha. wuxuu wax naga difaaci karo waa wax ka yar 30% qiyaas ahaan. waxaynu tuuraynaa gantaal qiimihiisu yahay $50,000, iyaguna waxaynu ku soo tuurayaan gantaal qiimihiisu u dhan yahay $300 oo kaliya. taasina waa khalad weyn, dhaqaale ahaan ma sii wadi karo. xukuumadda Israa'iil waxay ku dhawaaqi doontaa miisaaniyad dhan $912 milyan oo ah kharashka dagaalka aan kula jiro argagixisada daran ee joogta aagga yar ee la yiraahdo Gaza. dhaqaalahaasina ma heli karno. lacagtaasoo idil waxaa loogu talagalay inay ku baxdo shidaal, gaadiid iyo arrimaha kale ee fududaynta dagaalka. xaalkan adag ee aan ku jirno marnaba kuma sabri karno muddo dheer. xalku inoo kuma jira dagaal, waayo waxa aan ka fahanay dagaalka 10. dhibaatada aynan xalka u helayn waa caqiidadooda iyo aaminaadooda buuxda ee ah in dhulka ay iyagu leeyihiin oo aan inagu aynan dhulkan waxba ku lahayn. Maraykanku waxba inooma tari doono aakhirka. hogaamiyaasha carabtuna nama taageeri doonaan, waayo xilligan awood kuma laha dalalkoodu hooyo, waayo shacabkoodu waa ay naceen hogaamiyaashaas. shakhsiyan waxaan u malaynayaa in la joogo dhammaadkii Israa'iil, sababtoo ah shacabka bariga dhexe way ka soo tooseen hurdadii. innaguna waxaan ku riyoonaynaa inaan la saaxiibno oo aan heshiisyo la gallo. waxaan ka baqayaa mar dhow in Urdun iyo Masar ay noqdaan goobaha laynaga soo weerari doono. taas macnaheedu waxa weeye in aynu noqonnay bilaa difaac oo aan cidna ina difaacayn waqtigan. madaxyadeennu jahannamo ayay dul saaran yihiin. intaa ka badanna ma si adkaysan karo inta aynan waayin meel aan u baxsanno. waxaan kula talinayaa bulshada Yuhuudda inay u haajirto Yurub oo qaxooti ahaan halkaas laynoogu soo dhoweeyo. waxaan filayaa sidaas ayaa inooga fiican intii innaga oo nool ay carabtuna cuni lahayd. idinma cabsi gelinayo, laakiin runta ayaa ah in dowladdeenna Israa'iil aanay xilligan samayn karin wax aynu ku sii sabirno. warbixintan waxaa qoray saxafiga la yiraahdo Gideon Levy oo ah saxafi dunida caan ka ah, in badanna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, kuna guulaystay marar badan jaa'isooyin dhinaca saxaafadda. Gideon Levy waa qoraa Yuhuudi ah, waxaana uu wax ku qoraa wargeysyo badan oo wargeyska Haaretz uu ka mid yahay. wuxuu soo noqday wariye ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil. shacabka Yuhuudda badankood waxa ay Gideon Levy u arkaan geesi aragti dheer. waa Cabdirasaaq Jubbo in intaan dib u kulmayno. nabadgelyo. I served in the Israeli army. I did even something which is much worse than this. I worked for 4 years with Shimon Peres, then leader of Israeli opposition in the late 70s, early 80s, before most of you were born. And it was only by the late 80s when I started to travel to the occupied territories quite accidentally, when I realized, as a journalist, when I realized that the biggest drama of Israel is taking place half an hour away from our homes, in our dark backyard,
that this real drama of Israel has almost no one to be interested in,